Sheekadan waxay ku saabsan tahay Nikola Tesla. Nikola Tesla waxa uu ahaa saynisyahan iyo hal-abuure aad u garasho dheeraa una dhashay dalka Croatia oo ku yaalla koonfur bari ee qaaradda Yurub. Waxa uu noolaa intii u dhaxaysay 1856 ilaa 1943. Waxa uu xambaarsanaa fikrado aad u horumarsanaa, laakiin dadkii xilligaasi ku xeernaa ama ka agdhowaa ay u arkayeen hal-abuuradiisa kuwo aan suuragal ahayn. Tesla waxa uu soo bandhigi jiray aragtiyo aad uga horreeyay fahamka bulshada iyo saynisyahanada waagaas. Dad badan ayaa u arkay in fikradihiisu ahaayeen kuwo aan macquul ahayn ama xitaa waali ku dhisan. Nikola Tesla waxa uu hindisahooda lahaa waxyaabo badan oo maanta dunida laga isticmaalo, waxaana ka soo qaadanaynaa dhowr waxyaabood. Tesla waxa uu aaminsanaa in korontada la gudbin karo iyadoo aan fiilooyin la adeegsan. Tani waxa ay saldhig u noqotay tiknoolajiyadda maanta la isticmaalo sida wireless charging ee loo isticmaalo taleefannada iyo qalabka kale ee casriga ah. Tesla waxa uu sameeyey mashruuc tijaabo ah oo fikraddan ku saabsanaa laguna magacaabi jiray Wardenclyffe Tower sannadihii 1901 ilaa 1902. Inkastoo mashruucan uu socon waayey xilligaas kadib mucaaradad iyo diidmo uu kala kulmay dadkii u dhowaa darteed, haddana waxa ay noqotay aragti la yaab leh oo dib laga fahmay lagana faa'iidaystay hal qarni kadib, waxayna isku beddeshay adeeg ay isticmaalaan dad badan oo ku nool dunida maanta. Nikola Tesla waxa uu sidoo kale hindisay in si dhaqso ah la isugu gudbin karo fariimaha iyadoo la adeegsanayo hirarka electromagnetic, taas oo horseed u noqotay hal-abuurka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda casriga ah ee maanta dunida laga isticmaalo sida Wi-Fi, radio, mobile communication iyo adeegyo kale oo badan. Inkastoo ay jiraan shakhsiyaad kale oo lagu xuso inay wax ku lahaayeen qaar ka mid a fikradahan, haddana waxaa jira raadad iyo sheekooyin muujinaya in Tesla uu ahaa kii ugu horreeyay ee lahaa fikradahan. Tesla waxa uu rumaysnaa in tamarta korontadu ay beddeli doonto shidaalka caadiga ah, gaar ahaan marka la eego gaadiidka. Fikraddaasi waxay dhiirigelisay hal-abuurka gawaarida korontada ku shaqeeya ee maanta caanka ah, sida shirkadda Tesla Motors oo magacaas ku sharaftay Nikola Tesla. Inkasta oo Tesla uu lahaa maskax iyo hal-abuur la yaab leh, haddana ma uusan helin taageeradii iyo sidoo kale dhaqaalihii uu u baahnaa, taas oo keentay in uu noloshiisa dambe ku noolaado saboolnimo. Tesla waxa uu dhintay 1943 isagoo keligiis ah kuna noolaa hodheel ku yaalla magaalada New York. Nikola Tesla waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa halyeey dhanka sayniska iyo hal-abuure ku jira taariikhda horumarka tiknoolajiyadda hadda saamaynta weyn ku leh adduunka casriga ah. Tiknoolajiyaddii uu soo hindisay waxa ay saldhig u noqdeen waxyaabo badan oo maanta laga isticmaalo warshadaha kala duwan sida tamarta, isgaarsiinta iyo xakamaynta elektarooniga ah. Inkastoo Tesla uu dhintay isaga oo aan dhaqaale haysan, haddana maanta waxa uu leeyahay sumcad iyo taariikh aad u weyn. Shirkadda Tesla Motors oo uu leeyahay Elon Musk ayaa xitaa magaceeda ku sharaftay Tesla. Nikola Tesla hal-abuuradiisii iyo aragtidiisii fogeyd ee ku saabsanayd mustaqbalka tiknoolajiyadda ayaa maanta noqotay kuwo dhab ah oo weliba yaab leh. Nikola Tesla waxaa lagu tilmaamay inuu yahay tusaale cajiib ah oo ka turjumaya awoodda bini'aadamka ee hal-abuurka, xitaa marka dadka kale aysan fahmin ama aysan taageerin aragtidaada. Waa Wow Media oo ku leh soo dhawow mar kale.